geed quwaaxu kolley anu halkan waxaan u imid oo geed quwaax laga hadlayo wasaaradana markaasaa wasiir layga dhigay. ilaa hadda waxaan ogaaday intaan meesha joogay waxaa qaata waa Chinese. maalin dhaweyd baa nin Chinese ii yimiyo niman dhalinyaraa baa waday marka waxaan malanaya inuu ahaaba kii xadi jiray ama loo xadi jiray. marka su-aalaan ka weydiiyey waxaan ku yidhi maxaa geedkan ku falaysaano? wuxuu yidhi China waxaan samaynaa buu yidhi meelaha muhiimkaa baa la dhigaa lagu qurxiyaa. waa dhowr geed oo nooca weeye weliba deegaamadan nugaal u badan baa laga helaa. waxa weeye dembi baa ka yaala sharciga hadda i weydiinaysid baa dembi ka qoraya. wasaaraddu dhowr jeer bay qabatay kaysas baa jiray muxuu ahaa famous ahaayo maxkamadeey dad lagu maxkamadeeyay halkan. de waa contraband wax hadda official ah oo dowladdu ogoshahay maaha. dalkaana xuduudyadiisu waa furan yihiin. baabuurta iska soconaysaa la gelinayaa lagu xadayaa dad maaragtay qeyral mas-uula qaata. qaarna naf baa u geysay waxaan maleynayaa kolleyba uun dakhli bay ka raadiyaan. wasaaradda aad bay ugu dadaashay inay xakamayso runtiina hadda meel fiican buu marayaa xakamaynta. booliisku aad bay uga shaqeeyaan oo dhowr jeer baa lagu qabtay wadadan dheer oo maaragtay Garowe iyo u dhaxaysa Gaalkacyo. marka shaqooyin badan baa ka socda geedkaas laakiin hadda baaris baan wadnaayo horta faa'iidadiisa waxay tahay maaragtay inay cidi suuq geyso oo meesha loo suuq geeyo laftigeeda inaan communication la sameeyno xiriir la sameeyno ogaano. sababtoo waxaan ogaano laftigiisa waxa dhici karta inuu faa'iido badan u leeyahay haddii uu yahay wax maaragtay dhulkeenana ka baxa macnana leh bal in dowladdu ay markaas fiiriso in alternative income uu noqon karo la dhihi karo system dawli ah mar hadda waxa waa la dhoofiya marka in maaragtay si sharciyan marka loo dhoofiyo oo laga shaqeeyo hadduusan geed dhabar go'ayo uusan ahayn oo markii inta laga qaado uusan dib dambe ama u soo baxayn ama la beeranayo meel kale laga beeranayo khatarta waxa ah geedka in la beerto. sababtoo waxyaabaha dalka ka baxa in la ilaaliyo idinka dhan mas'uuliyad baa idinka saaran. hadda meel kale loo xado la geeyo hadda muhiimaddu uu kula halkii inuu ka baxo oo macna beelaysa marka taas marka wasaaraddu optionadaas oo dhan bay fiirinaysaa anagoo marka waxaan ka taxadaraynaa inuu geedku noqon wax la iska dhoofiyo oo dad kale ay ka baac mushtaraan oo marka hadhow aan lagaaga baahan ban laga soo doonto marka warkiisu isagu waa ma badna laakiin dawladdu waa aad bay uga shaqeysaa.